Hello Soomaaliyeey. Hello Soomaaliyeey. Habeen wanaagsan. Haye, qalab wanaagsan. Waxa weeye aniga waxaan la yaabanahay sheekooyin badan baan ogahay. Naago iyo niman moodahaya wareedha Soomaali waxaan su'aal baan qabaa. Soomaaliyeey, everybody oo Soomaaliyo oo hooyadiis iyo aabihiis Soomaalinimo ku dhaleen oo diinta Muslim ku dhaleen oo bilaadan ah waxa aan qaati ka joogaa naago iyo niman iswata naagaha iyo nimankaas oo iga xigsanaya Soomaalida inteeda kale hadda laba jeer ba ilaa xalay igu dhacday ilaa shalay marka soo socday maana soo tagay soo socday masaajid baan soo maray waa la iga caawinayay waxaan iimaanka wuxuu yiri dadka waa maartay ku caawina lacagta ku maartay ku karaanaya adigu lacag sadaqa ah oo meel laga furay 500 ayaa la yiri waa laga soo furay nin Soomaaliya ku dhagay ninka Soomaaliya oo madow oo reer waqooyi ah ninkaas oo yiri gabadha $50 la siiyo gabadhaas waa konton le weey gabadhaas 100 lama aha marka dadkan waa ii dawladeynayaan ma garat xawee dadka soo cunaha dadka qabanaya bal maxaa ka galay masaajidka Soomaaliya xitaa ma lahayn daqiiqo ma lahayn dad Muslim ah baa lahaay waa ka soo tagay waxaan imid Missouri masaajid meel Soomaali center leedahay baan imid niman baan ugu imid Soomaali ah waxa waa imaamkii baan u galay imaamkii wuxuu igu noqday nin aad u xun wuxuu xawaalay soo wacay markii hore u malaynayaa waa ninka dadka la isticmaalay horay buu baa soo ii yaqaanay si xun buu ila hadlay waa ka tagay waxaan ku dhaado hadaad qadisay oo aad masaajidka inaad leedahay aad moodi iyo xoolahan iyo baabuurtan iyo adduunkan waxa weeye dadka Soomaalida aba maartay anigu la hadli karaa waayahay dadka Soomaalida la hadal buu yiri nimanaan garanayo markiiba anaga qoladaas isku qalanaha ka helay meesha nimanka waxay igu yiraahdeen qoladayada ha sheeganin sidaas oo ay tahay aniga waxa ku yiri markii horena waxa weeye qoladayada ha sheegana waad leedihiin dadkanuna waxay waxba iigu qaban waayeen waxay leeyihiin ku garan maynee seebaa la igu garanaya daan qoladayda sheeg qoladaas kaligiin midinka iska leh soo ma wada lihin hadda Soomaaliya waxa ku sheegaya oo idin sheegay sida raggaan iyo naagahan iswata u gardaran yihiin oo moodahayaan dadka inay ka xigaan oo ay isugu barbarinayaan oo ay moodahayaan marka dadka ama qabiil maamul la yiraahdo hadda waxa soo dhan waxa sameynaya waa nimankan aadan axmed reer aadan hagar ee maamulhaya reerkan aadan axmed weeye tuugada ah weeye waxay dhacday inay dadkii wax ku qaban lahaana marka dadkii aad isu sheegayso maartay dadkii waxa dhacday waxa garan waaba dhacay marka dadkaagii aad u soo dhawaato oo arrimihii tusto oo wixii tusto oo sheekadii ka dhaadhiciso oo wax walba aad tusto oo meesha ka timi iyo meesha u socotaba aad tusto oo illa wax kala lagu moodayaa who you are tusto waxa laga yaabaa marka in lagu soo dhaweeyo oo dadkaas wax ku qabtaan sidii ay horeba u naqaanay Soomaaliya markii ay dadka ay ku soo dhaweynayaan reer ku dhiibi jiray hadda waxa dhacday Soomaaliya dhulbahantii inuu iga dhunto inuu dhulbahantii yiraahdo xitaa hana sheegan yiraahdo waxna noo qaban waayo ummadii muslimka ahayd hadda anigu qoftaas sii socota hadda maanta aniga hooyaday waa ii wacday wiilkii waxay sheegaysay marba nooc weeye marka anigu aan joogaa ku waa tagay xagga Texas baa xaggaasaan aaday state xaggaasaan aaday waxa dhacday markii aan joogayna sida baa jirtay oo waa arkayseen hadda markaan tagayna waxa dhacaysa marka aniga aan joogo wiilka ka agdhowahay waa la caawinayaa bararka waa ka dhacayaa waa si fiican baa loo miirahayaa loo dhaqalmay laakiin markaan tago markaas waa marka si fiican loo maartay loo baabi'inayo marka aniga ma joogo aniga meeshii ma joogo magaaladii sida hadda la iigu hareerayo la iigu dhibaateeyay qolkii aan ka seexan jiray marka imaado waa iska tiray oo iska baabiyay sidaan horeba YouTube-teeda u soo galiyay alaabadii intii hadhay baan sii qaatay meel kale la aaday waxa dhacday dadkii markaan sida u sheegan uma shaqeeyo first time iyo waxaana ma qaato qof waxaana travel dadka waad caawisaan mana idin imaan waligay ama saas
هذا بالغاسكي وحيقا بحي مركا يرادو لغو ما قرانا مركي ليرادو مركي عن دادكي سو شاقانا دول بهانتيه وحي اورانا يهانا الشاقاني هذا ولا ليالا وبال تركيانا oo qof hada waxa weeye masaafruhu meel marayo oo dhul marayo oo shaqeeynin dadkii magacaaga aad ku abtirsanaysan ha sheegan hadii lagu yiraahdo dadkiina ay ku garan mayna ku yiraahdaan especially dadkan muslimiinta ah waxba ma haybsadaan waxaad u tusaysaa documentiga iyo wixii maaragtay hawlo aad rabto day kiratahay day biil tahay day maaragtay gaas iyo maaragtay wax lagu sii aday wacuna tahay waxaas tusaysaa laakiin Soomaalida qabyaaladaystayaal raisisa ah ayay noqdeen oo beenta iyo tuuganimada ku qaraabta ayay u bateen kuwaas oo ka dhiganaya maaragtay marmarsiyo oo maaragtay blocking in order to block you to assist you being very cruel markaasay waxay iska dhigeen dad cadow ah oo cruel ah ayaga oo ku marmarsoonahay we don't know maxaa sheekooyin baa wadanka jira Soomaalida lagu nabanayo waxaas oo geema marka ay doonaan iyagu lacag waa dirahayaan hub waa iibinayaan dadkoodii xoolii lacag waa u dirahayaan masaajidada waa ka gurahayaan been waa sheegahayaan laakiin markuu qof uu maaragtay oo jarable oo maaragtay single ah ama maaragtay dan ama birada laga rabo ama electric raba ama maxaa raday raba waxa la gas waa diidayaan oo maaragtay bilaayo ayay la imanayaan qoladan dhulbahantuhuna waa qola la iibsaday oo dadkan dhulbahantaha ee masaakiinta intooda buurka ah waa la iibsaday waxa way intii taajiriinta ahayd baa iibsatay iyo dad kale oo u hibeeyeen marka waxaaba lagu leeyahay na sheeganin Soomaaliyay tala isiya waxa arkaa in maaragtay annaga hana sheeganin la leeyahay oo hawlaha iyo dhibaatadii annaga naartan haysata intina lagu garab gabadha garab qabta warwiilka garab qabta la oran la Soomaaliya wixii adu qaban kartaa adu qabta in ilaahdo annaga ma naqaano iyo annaga hana sheegan iyo maxaa dhahdaayay booliis baan kuugu yeerinaa iyo wax noocaasa marka la in dawladda Mareykanka loo tago qabiilka dhulbahantaha aan nahay dadka yagaan caawinayna dawlad baan nahay kan marka kalena sida in cadawga lagugu soo daayo cadawga hareeraha ka xiga reeraha dhulbahante ee la baabi'iyay majeertaanka iyo isaaqa iyo ogaadeenka saddexduba waa isku mid isma dhaanta weeye meeshii aad ugu tagtaba waa cadow waxa weeye gaaska ka bixin maayaan ku soo dhaweyn maayaan meeshii aad ugu tagtaba waa saddexda qabiil hadda waxa dhacday masaajidka aan soo socday sheeko badan baan Soomaaliya idin ogahay waxalaala waxaan u sheegayaa sheekada waxalaala wixii Soomaaliya ku dhashay ee hooyadeed iyo aabahood Soomaaliya ku dhaleen ee Soomaali ku abtirsada ee calanka buluuga ku hoos dhashay ayaa la hadlay anigu la hadli maayo Soomaalida la qaybsaday Ethiopia na jiidatay iyo Kenya na jiidatay anaga war uma hayno laakiin waxa aan ka hadlan inta la baabi'iyay ee la qaxiyay ee masaakiinta ah ee dadkoodii la wax la xidhay iyo wax la haysto iyo wax maartay meel ay ku sheegaan aqoon iyo wax Soomaaliya ka jira iyo wax maalin walba shilinka ay helaan dira sidii aan u diri jiray awalba anigu dadkaas aan la hadlahayaa lama hadlahayo dadka kibray ee ma aragtay atoorayaasha ee dhinaca walba afarta dhinacba ka qaraabta dhinaca Soomaalida ka qaraabta Soomaalida qaxootiga Soomaaliya ku dhalatay ka qaraabta ee Soomaalida Ethiopia ama kuwa Kenya ka qaraabta ee dhibaateeya ee dadkoodii baabi'iyay anigu la hadli maayo ee meel walba guryaha waaweyn ka jeexday ee meel walba bangalooyinka iyo baabuurta iyo adduunka iyo taraagyada iyo waxa wata oo markii aad la hadasho ku oranay I don't know aniga ma aqaano Soomaali ma ihi Kenyan baan ahay hadda waxa dhacday in Kenyan iyo Ethiopia la Soomaali Ethiopia ahay Soomaali Kenya ma inay sheegtaan Soomaalidii daaroodka ee dhulbahantahayd maxaad ogtay sheekadaas Soomaali ay socota waxa weeye waxba fara inooguma jiraan waxa allaala wax fara inooguma jiraan ma jiraan dal fara inooguma jiro dad fara inooguma jiro waxa weeye maanta waxa dhacday waxa allaala wax fara inoogu jiraan ma jiraan dadkeeni iyo caruuraheeni Soomaaliya ku dhashay waa la iibsaday waa la baabi'iyay dad Yurub iyo America ka yimid oo baxaraday caruurahooda Yurub iyo America ku dhasheen oo wax barasho u raadinayo oo lacag u raadinayo oo guryo u raadinayo oo wixii ay Yurub iyo America ka raadeen ka waayeen annaga naga soo raadiyo wadankeeni ka raadiyay baa soo baxay
Soomaaliya ay guntiga dhiishaha la iskaga dhigo halla caruurta halla maxaa raday loon halla scholarship caruurta scholarship halla la raadiyo caruurta Soomaaliya ku dhalatay waa la dhacay qaxootiga Mareykanka ku ah kulligood loon bay qaataan waxna jidadkay taagan yihiin waxna loon baa lagu leeyahay waxna waxbarashadii waa laga saaray oo waxa looga saaray oo looga cayrsaday oo looga saaray kuwa iyaga wadanka Mareykanka ku dhashay ayaa xaq u leh waxbarashada iyo lacagta kuwa la siinayo qaxootiga ah laakiin kuwa Mareykanka iyo Yurub iyo Afrika iyo maxaarada ku dhashay Afrikada kale iyo ku dhashay maxaarada Soomaalida ku dhalatay Sacuudiga iyo elsewhere Soomaaliya ayaga gacanta qabsaday guryaha ayaga ka dhistay ayaga qabsaday ayaga dhulkii dadka Soomaaliyeed ku noqon lahaa ka xoogay waa layna dhacay Soomaaliya waa layna dhacay caruurteeni Soomaaliya ku dhalatay waa la dhacay waxa weeye halkan waxba uma yaalaan kulligood loon boqolaal kun oo loon baa lagu leeyahay wadankii aynu nimida Mareykanka la waa laynaga soo hoos galay wax walba waa laynaga hoos baxay dawladeeni aynu magangeliyada u ahayna waa laynaga hoos baxay wax gacan inoogu jira ma jiraan wax kiriirid baan gacan inoogu jirin waxaan gacan inoogu jirin xoolo dhaqaale waxaan gacan inoogu jirin guri xitaa aynu u hooyano oo aynu inagu leenahay waxaan la hadlayaa dadka qaxootiga ah ee Soomaaliya ka soo qaxay ee qaxootiga ee la soo dilay ee la soo baabi'iyay wax walba lagala soo haray ayaan anigu la hadli maayo dadkii hore Mareykanka u joogay ee lacagta siyaad barisiye wax ku bartay ka faa'iideystay wadanka Mareykanka ee waxbarashada bilaashka ah helay ee dabadeedna dhaqaalihii waxbarashadii dib intay wadanku la soo noqdeen ku baabi'iyay ee haddana Mareykanka dadka ku baabi'inaya la hadli maayo kuwa anigu waxaan la hadlayaa dadkii garab raratada ahaan jiray Soomaaliya aan guryaha aan ku lahayn ama waxa meel ay ku lahaayeen meel dhul ah dhul ku sheega ama waab ku sheega ama qolol ah dadkaas oo soo qaxayo markii dambana qaarna meel lagu hor joogo Kenya iyo u dhaxaysa Ethiopia Kenya iyo u dhaxaysa iyo Soomaaliya halkaas oo la leeyahay waa dhul Soomaaliyeed hase lagu hor joogo dadkaas oo maanta caruuraha halka ku dhashay ayna waxba haysan oo meel ay xitaa musquul ay galaan lahayn oo cunto haysan oo ilaa halka lagu hor joogo dad kale dhaqaale ay helayaan loogu hor joogo waxa kale oo aan ka hadlayaa kuwa Mareykanka ama Yurub soo galay oo ama dhibaatada ku dhacday ama la xiray ama waxbarashada lacagta badan ee loonka qaatay ee aan iska bixin karayn oo aan aabaha lahayn oo aan walaalaha lahayn oo aan qabiilka lahayn oo hooyooyinka single mother-ka ay la yimaadeen Mareykanka ama kuwa gabigooda aabayaashood la dilay ama waxaan la hadlayaa kuwa aabayaashood iyo hooyooyinkooda ay yihiin dad maarta ignorant ah oo aan fahmaynin sida maarta systemku u shaqeeyo in marka hore caruurta ay shaqaysato kiriirkooda ilaashato oo marka hore ay loon ayna qaadano ka dagaalanto loonka ayaa wanaagsan oo caruurtaas clearly ay ku graduate 4 years college laakiin markay loon qaato 50,000 100,000 oo biilka ay bixiso waalidkuna uu yahay waalid la baabi'iyay oo marka ay soo jeesatay hadhow caruurtii loonkii lagu leeyahay caruurtaas oo marka ay graduation ay shaqo hore u helaynin iyadoo aan la shaqaynin senior yorkoodii aan waxba training iyo waxba la siin waxaas oo lacag lagu train garaan lahaa ama lagu gacan qaban lahaana ay Soomaalidu kala hoos baxday oo tiri caruuraheena ayagu ay markii horeba contract ku qaateen xagga dhaqaalaha waxbarashada iyo xagga justice assistant-ka ayagu ay contract ku qaateen iyo xagga life insurance-ka iyo waxaas oo dhanba marka aad iyo aad ayaa dhibaato noo haysa waa inaan isgarabsanaa YouTube-tayda soo ay taamgareeya waa inaan isgarabsanaa inteena la baabi'iyay ee laga meel walba lagu Soomaalida ee buurka ee fakhriga ah waxaan anigu hees baan ka qaaday waxaan idhi Burebaris only citizens every country bigger house owners bigger car owners the only citizens of every country baan idhi ma garatay waxa way sheekadu way dheer tahay Soomaaliyeey
waxaan isku ognahay inaan maaragtay wax aan maaragtay aan ka dhiidhino inaan maaragtay xaquuqdeen aan la soo baxno oo aynu iskaashano oo aynu wax allaale waxaynu xaq u leenahay raadsano oo si fiican aynu uga baaraan degno ayaan isku ognahay. Salaamu calaykum.